aarkuba hadduu wayo badan gaajo ku abaado afihiya kayntiyo wuxuu iranka meeraaba amin leyla guuraha hadduu ooda kala jeexo abda ma leh hameenkaa wuxuu iligta saaraay idii suciyaa maalintuu uurta buuxsadee hartiguna adduunku hantiyey aarmigiiyo maalka iska hadal ma fiicne hadduu goobtii ku adkaaday ummadaha waxaan doonayaa inay ogaadaan ilmaha haatan soo kacahiyo ubadka beermaaya historiya haddii looga dhigo sogonfici mayso arrinkaasi taariikhda waa lama ilaawaane aloofaad markuu soo duldhigay ciidan laga oo'ay jimcihii aroortii horiyo oogta waa beriga goortuu ataag xooggan iyo weerar ku ekeeyey arxanli'i markay ugu rideen aarmi kala jaada dhirtii olashi urana waxay awdaysamadii allaa magane baarleef miyaan laga aqoon waayin altalerigiiyo suuga iyo bi'an wixii ooley kaaraha uruman iyo madfaca luqunta awriyaalle maba eegin kabahoodii bay ka anfariireen nafta orad ku aamine intay alabas yaaceene ayaan darane sow lagama furan anad wuxuu haystay adimada miyaan dhagixisoow in xun kugu reebin dalqada aarka maantaad gasheen nibiri uurkiise abbaanow kuwii la qabtay soo kuma ay ooyaynin maagga iyo aabiga raggii loola imanayey eeddoo wixii idinku dhacay ududsan maysaane awooddiina ku laaban iyo ubixi daarooda in yar baahartina kaaga timid ururadiisiiye weli eebadii kuguma dhicin awlaxa ahayde anshaxmarin ayay uga socdeen anshaxmarin unbay uga socdeen saad u aragtaane hadda oog ha soo dhaafinina waa dignin adag annaba taayadan aaminaye tinna ku ekaada intuu horeba eed kugu filan ana godobeede islaam iyo dadkii goba xumaan uurkuqaad ma lehe ilaahoodna waa ugu samraan maalin aakhare haddaan aar lagaa gudanahayn edab haddeer yeesh awsax waa idin arkaa oo sibaad u alwanaysaane awsax mar kale yuu ku rudin waa abguridiiye eelka ku soo rodinayiyo arrimadiisiiye aar qoyay dawuco maalin baa lagu ishaaraaye ayaamahan dhulbahantaha sidaabaad u aragteene weli inuu ajaayiye bir yahay haatan ma ogaad ukun bururtay buu idinka dhigay axalaheedii tanna eega taariikhdu waana anfacaysaay arladeenna waagii hore gaalku imanayey dhowr inana soomaali iyo kurayo uus buuran iyo ruuxan oogada cade odayga sheemaaya sayid maxamed goortuu arkee dhabuu ilaaleeyey inqilaabka nugu soo socdiyo belada soo aadan magaca adeer buu ku yidhi ku ag joogsadaye inankii markuu joon ku yidhi shiikhi amakaagi isimkii horiyo waalidkaa kuuku odhanayey haddii eegga joon lagugu yidhi kaagi ma ilowd axmed buu ahaa kii horeo lay aqoon jiraye ustaadkaygan baa iga beddelay maalintaan imide umalkuu ka qaaduu darwiish soo abaabulaye ololaha jihaadku guntaday ururi duulaan 400 ka badan goobihii laysku aynabaye afbakayla iyo beerdhigaa ugu inkaaraaye ayaantii jidbaariyo fardhadin urugadii tiilay omaskii cagaar weyne ee gaala ku idlaatay wixii ubad agoontoobay ee dumar asay qaaday ayagiyo daraawiishtu waisku ilka beereen meydkii arrada tuunsanaa idunma aasayne udxiyey waraaba u ahayd ubatiyeyey asaayuhu wixii uu ka dhacay eelka sababtiisa ingiriis addoonsiga markuu uunka badi haystay isticmaarka nimankii markaa loola iman waayey askariya baroor aragsan iyo xamar abraaraya oogada kuwii kaga dhacee orod ku soo fuulay raggii aabbayaashood kufriga kaga ilmaysiiyey afrikaanka nimankii marshihii eeshiyadu keenay askartiisii goortay dhulkii ugu imaan weyday oogada koreetiyo cirku nooga aarsaday miyaan lays aqoonayn dad waa loo abtiriyaay kuwana gaalku oorada ku taldaba ambulaaye ayagaa ilaala uu ahaa axaalahoodii ajnabigiiyo caddaankay futada ka ursanayeen nin baa yidhi amuuraha beddelan la ashqaraarkooda adduunowba sidii loo lahaa buu iqliilya ama kaaglayaab iyo fajacu ugubi weeyaane isha nimankii dabayaa baryahan la abhinayaaye qof walba afku labada sacab ku asturayaaye ujeeddada haddaan muujiyoon saafe eraygayga soomaaliya urursan oo uliya diirkeeda asaan ijaabi iyo farxad iyo guul aragnaabaan